السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن أو ونعكسن تعوضي الكسر وذا برنامج كيني ورئيسي السياسي أما ضدك وعاصن قيق الصومالي ذا سان إسلام هاي مربى وقفك أي حيثني عند وضياشينا كحنا نشانل كينا يوتيوب كعبشير شوكر ما أنتنا وحنا كسر قدام دونا هدي الله وضرو ويدمو أما مثلنا وقدوميها حسبيغا معارضكا عيد سوماليلان انجينير فيصل علي حسين ورابه oo barnaamijka wartino waxa ugu horeyn ku soo dhawow injineer barnaamijka kulanka ama wareysiga siyaasiga su'aasha ugu horeysay hadan ku weydiiyo waxay noqonaysaa see wararka caalamka Soomaaliya inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun hadii su'aasha aan ka gudubno su'aasha kale injineer ku weydiinayo waxay tahay waxaa sheegtay in magaaladii Hargeysa ahayd meel laga maro ay laadahay niman Oromaa maxay dadkaas magaaladii waxa qaatay dadkii Oromada dawarsanayeen wadooyinkii su'aasha igu kale aan ku weydiinay engineer waxay tahay waxaa sheegtay inaad masaajidkii iyo wadadii ka mari weyd dadkaas aba ku tunkan weydii bal wax nooga sheeg ka mari ka weyn masaajidka ka gar weyn gidaarad bay ku dhaliyaan adeer say noo dhaamay ilaahay ku dhaay say noo dhaamay say noo dhaamay meel la maran ma jirtaa iyagoo is xambaarsan waayahay injineer aad baad u mahadsan tahay su'aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay waxaa sheegtay in Xasan Sheikh uu qaybiyay Somaliland oo gobol ka saaray oo nooga sheegay su'aashaas dadku waa ku wareereen injineer waxa xubno ka fuula laba xubno wixii waa Soomaaliya laba xubno wixii waa Puntland way ku jiraan Soomaaliya sana ilaa bay ku leedahay mana askaas ilaahay ku leedahay doonada dahay tahay injineer wali waxaan ku weydiinaa barnaamijkeedii su'aasha kale ku weydiinaya waxay tahay bal xisbigan kulmiye nooga war kulmiye ha ka sugina walaa Muuse walaa Saylaci inuu soo celiyo maalgelin wali ha ka sugin halkaas laga qoray waaya aad oo baahsan tahay injineer su'aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay Soomaalida dhaqankeeda qabiilka uu jeceshahay marka dhaqanka Soomaalida aad eegto dhaqamada Soomaalida waa nooga sheeg dhaqanka uu jeceshahay dhaqanka Soomaaliga qabiilka uu jeceshahay barnaamij jecel magaaladoonka waxay yaqaan dhaqankii Soomaali asalka kaas yaa u nacabta dhaqanka uu nacabta muduga aad baad u mahadsan tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Somaliland injineer Faysal Cali Xuseen Waraabe oo barnaamijka maanta martina uu ahaa inta ayaan kusoo go'aynaa barnaamijkeenii kulanka siyaasiga waad ka socoteen channelkan ku leenahay abshir joker youtube-ka nabadgelyo aan dhowrna Sanguni iyo xayeysiinta dhawow Sanguni General Trading LLC shirkadda Apple ayaa 13 bishan October shaacisay iPhone-nadeeda cusub ee iPhone 12 waxyaabaha ugu weyn ee uu leeyahay iPhone 12 waxa ugu horeeya inuu ku shaqeyn doono xawaaraha dheereeya ee 5G afar nooc oo kala duwan ayuuna ku imaan doonaa iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iyo telefoonkeeda cusub ee iPhone 12 mini adkaysiga shaashadda hore ee iPhone 12 ayay ku sheegtay shirkadda Apple inuu noqon doono midka ugu adkaysiga badan guud ahaan iPhone-nadii hore ay u soo sameysay waxa uuna ku imaan doonaa processorka A14 oo ka xawaare sareeya midka ku yimaada iPhone 11 biyaha boorka sidoo kale uu u dulqaadan doonaa iPhone 12 dhanka kaamirooyinka isbedel xoog leh ayay ku sameysay shirkadda Apple waxa ayna xoog saartay inuu habeenkii qaado sawir wanaagsan maadaama la og yahay